الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee u dabaaldegaysa usbuuca xurriyadda maalmaha xurriyaddii Soomaaliya qaybaheeda kala duwan gobollada waqooyi iyo maxaan ku raaa walaalaheen reer Djibouti oo 26 iyo 27 u dabaaldegayay maalintii xurriyadda waan u hambalyeynaa dhammaantood sidoo kale waxaan u hormarinayaa hambalyo munaasabadda soo socota ee 1 Luulyo oo ay Soomaalida meel kastoo ay joogto u dabaaldegi doonto maalintii xurriyadda koonfure maalintii midnimada Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed intaba intaas kadib maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood oo aad u waaweyn oo muhiimna xilligan hadda la maraya ah midda koobaad shalay oo taariikhdu ay ahayd 27 Juun 2020 golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ka dhacay laba arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah taariikhda Soomaaliyana muhiim ku ah midda koobaad waxay ahayd matalaadii gobolka Banaadir ee aqalka sare midda labaadna waxay ahayd hadal jeedintii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka labadaas arrimood waa laba arrimood oo taariikhda muxuu ahay siyaasadda Soomaaliya iyo dawlad dhisidda labadaba laba arrimood oo muhiim u ah markaan imaado gobolka Banaadir iyo matalaadiisa waxaan rabaa usbuucii la soo dhaafay golaha shacabka waxaa la hor keenay mooshin lagu soo bandhigay matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare oo ku yeelanayo dadaal dheer kadib shalay waxaa la ansixiyay 13 xubnood oo mustaqbalka ku matali doona Banaadir aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah dawlad dhisidda Soomaaliya maalinba meel bay soo maraysay maalin walbana waxba ku soo dirsoomay maalinna waxba ka muxuu ay hagaagay waxa bogaadin buuxda oo ballaaran aan u jeedinayaa senataradii aqalka sare ee markii horeba sharciga doorashooyinka ku soo daray gobolka Banaadir waxay mudan yihiin ammaan dadaalkaas faraha badan oo ay runtii Soomaalinimada ah oo ay ka geysteen dadaal dheer kadib xildhibaanada aqalka shacabka ayaa ayaguna u guntaday in la meel mariyo arrintaas mooshinka aan sheegaya ayay qoreen waxay horgeeyeen floorka baarlamaanka oo laga dooday kadibna juhdi badan iyo dadaal badan oo muddo socday oo aan kala go' lahayn kadib golaha shacabku wuxuu ku guulaystay in la meel mariyo 13 kaas xubnood waa ilaahay mahadi ha ka gaarto muxuu ahay golaha shacabka iyo xildhibaanada ku jira mas'uuliyadda ballaaran ay ka muuqdaan taariikhda dadka reer Banaadirna waa arrin hore u socotay runtii muddo dheer ayaa lagu taamayay arrimahan in ay soo socdaan ay soo dhaqan galaan waana lagu guulaystay arrintaas waxaan leenahay dadka reer Banaadir waxaan leenahay hambalyo in maxaan ku daayay ay sidaas sameeyeen xildhibaanadana waxaan leenahay waa mahadsantihiin hase yeeshee abaalka dadaalkaas weyn oo ay xildhibaanada galeen oo ay ka dhex galeen golaha shacabka iyo aqalka sare muxuu ahay baarlamaanka in si yar oo raqiis ah dad siyaasadeynaya ay u dafaan oo ay u qaataan macquul ma aha juhdi dheer oo muddo dheer la soo sameeyay dadka reer Banaadir ay u dul adeegeen samir iyo dulqaad ay u yeesheen dadka kale ayaga la mid ah muddo dheer ay dul qaadan waayeen mar horeba ay ku carareen amuurahooda laakiin ayagu ay muddo dheer ka soo dul qaateen ayay ku timiday arrintaas marka waxaan leeyahay arrintaas waa hambalyo bogaadin dadka reer Banaadir iyo xildhibaanada labada aqal ee maxaan ku raadayay baarlamaanka federaalka Soomaaliya intaba aad iyo aad ayaan u hambalyeynaa waa guul u soo hoyatay Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan dadka gobolka Banaadir hase yeeshee waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo waxa dhiman taasi waa guul la gaaray aad iyo aad u haboon qiimaheeda leh laakiin waxa dhiman inaan iftiimiyo si aan u sii wadno dadaalkeena oo aanan u dhihin wixii la rabay waa la helay sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aqalka sare wuxuu masalaa dawlad goboleedyada ama dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayuu masalaa nidaamka federaalka ah ayuu ku salaysan yahay sida daraadeed baahida dhabta ee gobolka Banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka si matalaadda aqalka sare ay u noqoto mid dhaba
maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen ay doorteen mas-uuliyaddiisa ay u dhiibteen sharciyada uu ku shaqaynaya ay ansixiyeen raalli ka yihiin oo taagan markaas ayaa muxuu ahay matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa baahida ugu weyn ee dadka reer banaadir ay qabaanna waa maamulkaas matalaada siyaasiga ah bas ma ahan dadka reer banaadirna maamulkaas markay dhistaan si ay ugu hoos noolaadaan hoggaan ay raalli ahaanshahooda ku soo dhisteen oo uga mid noqdaan nidaamka iyo saabaanka federaalka ah ee dastuurka ku-meelgaarka uu tilmaamay markaas ayaa muxuu ahay hawshu la dhihi karaa meel ay la siman yihiin dadka intiisa kale iyo gobollada iyo dawladaha ayay ugu dambayntii waxaa kaloo dadka reer banaadir u rajaynayaa inaan indhahooda laga sii jeedin qadiyadda dawlad dhisidda ee dadka gobolka banaadir degan qiimaha badan ugu fadhido dadkaani maalintii dawlad ugu horreysay ee ku-meelgaarka ee dalka loo sameeyey 2000 ilaa maanta ayay garab taagnaayeen dawlad dhisidda dalka Soomaaliya xoogay ku bixiyeen xoolo aad u baran ay ku bixiyaan welina ay ku bixiyaan si dalka Soomaaliya uu dawlad u yeesho marka waxaan leeyahay qadiyadaas kale oo muhiimka ah oo qiimahaas badan ugu fadhida dadka reer banaadir inaanay ka ilduufin oo aan inta muxuu ahaay inda sarcaad kale meel kale looga shido aanay ka mashquulin ayaan muxuu ahaay ayagana aan ugu baaqaya qadiyadaas oo maanta taagan meel isgoys ah oo khatar ah oo haddii jid qaldan ay qaado dhibaato badan ay ka imaan karto haddii jid saxan ay qaadana dadku ay ku naaloon doonaan Soomaaliya oo dhan guud ahaan gaar ahaan maxaan ku iraahdaa dadka ku nool gobolka banaadir qadiyadaas oo maanta taagan isgoys khatar ah kadib markii hoggaanka hadda talada haayo uu si bareer ah u diiday laba arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah qadiyada isgoys khatar ay taagantahay mugaan leenahay waxay ku saleysantahay laba arrimood waxaa si aan qarsoodi lahayn u diiday nidaam waxa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wuxuu si qarsoodi aan lahayn u diidan yahay nidaamka federaalka ee Soomaalida cusub ku heshiisay inay dib ugu dhisato dawladnimadooda waana lahayaa marqaatiyaasha arrinta ka cadeynaya qabashada doorasho heer qaran waxa kale oo diidan yahay qabasho doorasho heer qaran ah oo heshiis lagu wada yahay si loo helo kalsoonida heerka labaad ee federaalka ee ah dawlad goboleedyada iyo dadka ku nool in ayadana muxuu ahay ay waxaysan yihiin labadaas arrimood marka waa labada arrimood oo maanta Soomaaliya meesha isgoyska ay taagan tahay go'aanka laga gaaro ay dib ay ku leexi karto wadadii saxdeed doorashooyinka qaran markii loo yimaado waxaa la joogaa waqtigii ay dhici lahayd doorasho qaran ee xilli xileedka hay'adaha dastuuriga ah ee heer federaal shalay oo ay taariikhdu 27 bishii Juun 2020 waxaa golaha shacabka hadal jeedin ka sameeyay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Ibraahim hadal jeedinta guddiga oo muddo laga war dhowrayay la sugayay waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka Soomaaliyeed ay yiraahdeen tanitaan u dhiganayba ma ahaba wixii laga sugayay ama looga fadhiyay ama loo ikmaday oo maxaan ku raad dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay guddiga waxa meesha ay ku soo bandhigeen laana lagama sugaynin marna muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaasadeed oo hor leh in dalka guddigii madaxa bannaanay oo dastuuriga ahay oo ummadda Soomaaliyeed kalsoonida ay siisay inay baarlamaanka loo yimaadaan dhibaato waa dalku ka jirtaa wax qabadkoodu uu gaabnaan karaa laakiin waxa dhabta ee jiro in dadku u sheegaan iyo wadada la qaadayo ay ahayd muddo 3 sano ka badan guddiga waxay noo sheegayeen inay doorasho diyaar ka tahay dhankooda annaga diyaar ay naga tahay doorashada annaga farsamo yaqaanaan nahay siyaasiyiin ma ihin doorashadii waa naga diyaar hase yeeshee hadal jeedintii guddiga waxaa ka soo baxday inay ummadda Soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo waqti xeero iyo faldaan kala dhaceen ay ummadda u soo bandhigeen inay ruux dheeraysi u sameynayaan hoggaan muddo 4 sano ah wax ka qaba waayay doorashada dalka isla markaana xoog iyo xoolo fara badan ku bixiyay burburinta nidaamka federaalka ee dalku doortay sidoo kale hadal jeedinta guddiga waxaa laga dheehan karaa
muddo kordhin riman muddo kordhimo kale ma aha midda hadda ay sheegeen oo 9 biloodoo saana iyo sanad iyo maxaan ku yiraahdaa bar saana iyo ma aha waxaa laga sii dhayan karaa muddo kordhino kale ayaa ay dabada ku wadataa muddo kordhintaas koobaad ee shalay guddigu ay hadal jeedintooda ku soo bandhigeen muddo kordhintaas madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxay muddo dheer ku faanayeen inay wada joogeen annaga waa wada joognay isma qabqabsan isma diririn isma kandhixin hadda dad saaxiibaha isla shaahi caba ma ahayn wax qabada ummaddu ka rabtay xilaa loo igmaday mas'uuliyada loo dhiibay howla laga sugayay waa isla joognay ayaa muxuu ahay muddo 4 sano ah wuxuu ahay halhayska iyo muxuu ahay madaxda dalka hogaamisaay ay ku hasa yeeshee maalin ka mid ah muddadaas madaxweynuhu kama hadlin doorasho 4 sano sii dhamaanayso oo xilligii ah maalin inta dadka soo hor istaagay madaxweynuhu doorasho way dhacaysaa waqtigaasay dhacaysaa doorasho noocaasa suurtagal oo qaban karna sidaasay u dhacaysaa saasaa loo maamulayaa qawaaniinteeda waa sidaas kaasaa lagu dhaqmaa maalin inta ummadda soo hor istaagnaa madaxweynuhuna waa qofka ummadda Soomaaliyeed caleema saaratay oo la doortay oona mas'uul ka ah sida ku cad dastuurka ilaaliyaha constitution ilaaliyaha dastuurka inuu yahay lagu aaminay inuu dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ummadda ku heshiisay inuu u ilaaliyo lagu aaminay waa soo shalay marka maadaama madaxweynuhu meeshaas uu istaagay oo sidaas ahayd guddiga waa hadal jeedintiisa shalay soo ma aha afkiisa afan ahayn oo kororsiimo loogu dalbay soo ma aha madaxweynaha asugu waa kari waay waa dhihi waay war suurtagal ma doorasho ma qaban karna asbaabtan daraadeed waqtigaanaan u baahna saanan lahayn marka afkiisa afan ahayn ayaa shalay loogu raadiyay ama loogu sheegay in loogu hadlay in muddo kordhin oo ay u baahan tahay oo guddiga madaxa bannaan nama dhihin madaxweynaha iyo dhammaan hay-adaha dastuuriga ah waa madaxweynaha waa labada aqal ee baarlamaanka iyo guddoonkooda 4 sano howl doorasho maalinna ma qabanin maalinna sooma hadal qaadin laakiin doorasho way qaban karaan haddii loo kordhiyo muddo xileedkooda ku dhawaad sanad ama in ka badan 4 sano oo sii dhamaanayso qofkii wax qabad waaba halkiisa xataa ka hadli waayay doorashada iyo xataa asbaabta oo muxuu ahay loo dhici weyday in maanta aan ay guddiga inta hor yimaadaan ay noo sheegaan dalka ilaan hoggaankaasa mas'uulka ah dawladda xukuumadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee ka mas'uulka ah maashaasayna joogtaa inay maanta ka xishoo waayaan dadka inay hor yimaadaan ay dhahaan madaxweynuhuna uu soo adeegsado uu dhaho saas hal ii dhaho taasi waa kaaf iyo kala dheeri wixii ummaddu ay u dhiganaysay ama sugaysay midna ma aha hadal jeedinta guddiga waxaa kale oo ku cad muddo kordhin hoosta ku wadata muddo kordhino kale taas waxaa daliil u ah guddiga waxay ku andacoodeen ama ka muuqata hadal jeedintooda asbaabihii keentay dib u dhaca oo ay ugu horeyso hoggaankii iyo hay-adihii ay u tirinayeen dib u dhaca in ay weli ka sugayaan wixii shalay ay ka waayeen 4 sano wixii ay ka waayeen inay 9 bilood ama sanad iyo jarjar uga heli karaan inay rajo ka sii qabaan waa arrin muxuu ahaay aan runtii ay taagan tahay allow runayaa ku sheego hoggaanka iyo xukuumadda laga dhir sugayo sow ma aha kuwii tan iyo markii ay talada yimaadeen khilaaf iyo burburin ku waday dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah maalintay yimaadeen day 1 waxay la kowsadeen federaalka in la kala furfuro la kala jijibiyo la kala burburiyo dadka Soomaaliyeedna maanta mas'uuliyadda in badan oo kamid ah waxa haya hay-adahaas federaalka ee localka ee jira marka hay-adihii dawliga ahay ee dadku ay muxuu ahay meelihii dadku joogay ka talinayay maalintii ugu horeysayba oo yimaadeenba waxay ku wadeen sidii loo kala furfuri lahaay loo kala burburin lahaay maalin walba mid loo ceelay madaxweynuhu wuxuu hore u ballan qaaday inaysan jiri doonin wax muddo kororsi ah way duuban tahay waa on the record waa la dhageysan karaa doorasho kordhin ma dhacayso ma imaanayso ma waxaynayso madaxweynuhu intaasoo noo ballan qaado noo sheegay gaar ahaan waqtigii uu kursiga raadinayay iyo markii uu helayba hadalkaas uu aad iyo aad ugu celiyay
taasoo uu ku tilmaamay inay madaxweynuhu markuu ka hadlayay kororsimada wuxuu ku tilmaamay inay luminayso kalsoonida lagu qabo dawladnimada. sidaas daraaddeed wax la aqbali kara maaha inuu maanta noogu soo dulgabado guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isagoo raadinaya muddo kororsi oo asagu xataa aanu noo sharaxaynin, noo sheegaynin, noo waxaynaynin. dalkaanina madaxda loo igmaday ayaa mas-uulka ah. guddiga doorashadu waa farsamo yaqaano waaye, waajibaadkoodana sharcigoodu ku tilmaaman yahay. wax badan oon sharciga aan waafaqsanayna shalay way ka mid ahayd. sidii aan horay usoo sheegay, fidnada iyo qalalaasaha maanta ka dhex taagan labada aqal ee baarlamaanka, bal warkayga si fiican dhegeyso, labada aqal ee baarlamaanka waxaa aada uga muuqda faraha madaxweynaha oo shalaya ugu dambaysay aqalka sare ee baarlamaanka koormuu yeelan waaye. xildhibaano senataro laga maqnaysiiyey oo imaan waaye daraaddeed. intaas waa inta runtii dhabta ah oo meesha ka taagan. 4 sanaa sii dhammaanayso, ma dhicin in haddana maxaanku idhahdaay sidaan dawladdu ay iyadoon qofna kala tashan waxna yeelin. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka siyaasadda dalka iyo jaangooyintooda looma saarin. guddiga doorashada laba sharci ay leeyihiin. sharciga ayaga lagu dhisay iyo sharciga doorashooyinka oo midna inay dhowraan midna inay dhaqan geliyaan laga rabo. waxaa shalay ay ku hadleen oo ay ka mid tahay labada nooc ee doorashada oo midna 9 bilood ay u baahan tahay ay yiraahdeen, midna sanad iyo jarjar ay u baahan tahay. midda 9 bilood ay u baahdeen oo la yiraahdo afka qalaad waxa lagu yiraahdaa manual registration. qof socdaa imaanayo, maanta la diiwaan gelinaya, warqadda codaynta la siinaya, qadaa farta loo gelinaya. saasay doorasho ku dhacay. waxay dhaheen taasaan waxaan ugu baahanahay 9 bilood. taasna aniga waxaan aaminsanahay usbuuca lagu qaban karaa, usbuuca dambaa lagu qaban karaa haddiiba in la qabto oo muxuu ay ka go-an tahay. waa midda kale, middaas marka sharciga ma waafaqsana. sharciga doorashooyinka si cad oo aan mugdi ku jirin wuxuu u tilmaamayaa registration iyo habka registrationka iyo sida loo register garaynaa codbixiyaasha. sharcigaa qeexaya. labadii sharci ee lagu ay mas-uulka ka ahayn mid kamid a ayagoo baalmarsan inay golahii shacabka ee sharciyada u agmaday inta soo hor istaagaan wax ay ka shaqaynayeen dadka Soomaaliyeedan u deynaya. waxaa marka aan leeyahay sababta keenaysa waa sababtaas. baaqaan rabaa marka halkaan inaan ka jeediyo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan ugu baaqayaa inuu dhaga laab u daloola, inuu ku dhagaysto baaqa aan halkaan ka jeedinayo maanta. waqti ayaa horay dalka iyo dadka uga soo lumay ee fadlan waxaan leeyahay mid kale ha ka sii luminin. waqtiyaa soo lumay, wax lagu qaban karay in la qabto ay ahayd, waxa la qabanayo weliba ay caddaayeen oo liiqiina la qaban waayey. mid kaleo haddana waxba lagu qaban doonin in ummadda lagu sii hodo sax ma aha. waqtiga yar ee ka haray xilli xileedkaaga mudana madaxweyne, hal arrin ayaad ku filan tahay inaadan ka habaabin ayaana ila habboon. kaas oo ah inaad u istaagto doorashada in loo helo heshiis siyaasadeed in doorashada loo helo si awoodda xukunka si nabad ah loola kala wareego ama si sharci ah mar kale lagugu soo doorto adiga. madaxweynaha labadaas arrimooda u furan yaan ugu baaqayaa. gunaanad walaalayaal, ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay, waxaan hadalkayga kusoo gunaanadayaa inaan idin xusuusiyo. waa muhiim arrintan inaan idin xasuusiyo doorashadii dimuqraadigeed ee ugu dambeysay ee dalkan ka dhacday ee 1969. waqti dadka hadda maanta madashaan meeshaan taagan, goobtan taagan oo dhan aanay joogin ama badankoodu aanay joogin. waxay ahayd doorashadii dimuqraadiga ee ugu dambeysay dalka ka dhacday. cillada doorashadaas ay lahayd awgeed iyo cawaaqibkii ka yimiday oo xukunkii dimuqraadiga ahaayoo dhan oo minguuray oo meel kala degay. dadka Soomaaliyeed waxay ku qaadatay 50 sano maanta maru haysaa cawaaqibkii ka dhashay inay la tacaalo hayaan, welina ay wax badan uga dhiman yihiin. dadkana maanta waxay aamineen inay dimuqraadiyad iyo doorasho iyo sanduuqa in la aado.
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan khayre iyo xukuumaddooda waxaan leeyahay waddo kale oo haddana muddo kale in ay dadka soomaaliyeed ku dhumaan ha ku hageen waddada saxda ahayd dadka ku toosiya qaladaadka dhacay awgood waxaa dalkan iyo dadkiisa ay u horseeday mahadho siyaasadeed oo ilaa hadda taagan sidaas daraaddeed soomaaliya ma xamili karto qalad kale oo taariikhi ah oo dhaca xilli ay ka soo bogsanayso jahawareer muddo dheer ay la tacaalaysay soomaaliya sidaas daraaddeed qofka ama kooxda maanta diidan wadatashi siyaasadeed oo lagu gaarayo heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah ee ku saabsan doorashada qaran waa qaran dumis waana dawladiid qofkaasaa qaran dumis ah dawladiidna ah maanta ha laga wada tashado dalka doorashadiisa iyo dawladnimadiisa qofka shaki gelinayo ama kooxda gelinayso waa kooxda maxaan ku idhahdaye qaran dumiska ah ama maxaan ku idhahdaye dawladiidka ah ee maanta soomaaliya ka jirta waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ugu ducaynayaa in ilaahay tubta toosan iyo talada toosan waafajiyo soomaali badbaado nabad hor u socday u baahan tahay madaxweyneheenna talada toosan allaha tusaan leenahay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego kororsiimooyinka aan ka hadlayay muxuu ahay kororsiimada uu madaxweynuhu u hanqal taagayo ma aha mid ku kooban isaga oo keliya waxay gadaal ku wadataa kororsiimayaal badan waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka madaxweynaha oo la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka xukuumadda oo la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka golaha shacabka kororsiimo xilli xilaadka aqalka sare kororsiimo guddiga madaxa bannaan ee qaranka xilli xilaadka guddiyo kale oo badan oo dalka ka jiro waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan xasuusiyon u sheego guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xilligiisa uu dhammaanayaa sanadka soo socda bartamihiisa iyo ka hor u dhammaanayaa sharciga guddigaas lagu dhisayna wuxuu qeexayaa markuu xilligu dhammaado guddigaasi sida uu noqonayo soo noqoshadiisa in loo kordhi karo xubnaha ku jiraa inay soo noqdaan kulli qaanuunkaasaa tilmaamaya inuu guddigu maanta marka keensado mashruuc howlqabad oo kaas kasii dambeeya waqtigaas kasii dambeeya waa qabanaynaan ay leeyihiin hab maxaan ku idhahdaa diiwaangelin oo qaanuunka aanu tilmaamayn lagama sugaynin ayaga marna siyaasiyiinta waa laga sugaayay inay muxuu ahay xeelad siyaasadeed iyo meelo ay ku laalaabtaan laakiin guddiga dastuuriga ah lagama sugayn madaxweynuhuna qaribaadda oo hay-adaha dawladda iyo dawladnimada uu qaribay ay ka mid tahay inuu guddiga ka yeersiiyo hadallada shalay iyo warbixinta shalay ay keeneen dalka waxaan la aqbali doonin xilliga xilaadka dadka soomaaliyeed ay u igmadeen hay-adaha dastuuriga hadday dhammaato lama aqbali doono jiritaankooda shacabkuna ma aqbali doonaan adduunyaduna ma aqbali doonto yaan la geynin soomaaliya firaaq dastuuri ayaan laga abuurin ma dhacayso horena uma soo dhicin intii aan soo jirnay mar kastoo waxaan ay dhimaadaanne oo isku day sidaan oo kale u yimaadne foolxumo iyo qaabdarre iyo maxaan ku idhahda laablaab iyo soomaaliya oo magaceeda xumaaday iyo madax badan oo ku ceebowdaa ayaa ka dhalan jirtay war meeshaas wadda ma jirto horeyna waa u sheegnay dhowr marna waa ku celcelinay wadda ma jirta dhinacaas waddada waxay jirtaa waxaan leeyahay hoggaanka dalka hoos ha usoo degaano ha u yimaadiino saamilayda siyaasadeed ee dalka oo ay ugu horeeyaan muxuu ahaay dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka xisbiyada siyaasadeed ee sharciga ah bulshada rayidka iyo intii kaloo looga maarmin oo dhan qof kastoo aan looga maarmin mansabkiisa iyo meeshiisa in loogu tago talada loogu geeyo ayay mudan yihiin waxaan rabaa mar kale ilaahay waxaan ka baryayaa in tubta toosan dhammaanteen iyo talada toosan uu na waafajiyo soomaaliyana uu dhibaatada saaran oo alla ka qaado laakiin ilaahay annagoo noo sheegay sida dhibka looga baxaya inaan yeelnaana laga rabaa dadka soomaaliyeed qulubtoodana allah isku soo duwo xurriyadda 60 guuradana mar kale waxaan leeyahay hambalyo weli waa soo taaganahay waa u jeednaa waxasan waana ku taaganahay inaan codkeenna kor u qaadno waxasan waana la gaarayaa dadka soomaaliyeedna waxasan yaanay ka aamusin codkooda kor ha ugu qaadaanaan leenahay meel kastoo ay joogaan
ayagoo codkooda kor u qaadayo waa ka nimiday xilligii la isdilayay oo madaaficda iyo xabadaha iyo balaayada la isku ridaya waa ka nimiday dhiig la daadiyo shabaabaa noogu filan yaanan gadaal loo celinin dadkaani waa ka yimideen heerkii ay aaminsanaayeen awoodda siyaasadeed in qoray iyo qarax lagu tegi karo waxay u yimaadeen heer ay aaminsan awoodda siyaasadeed cod iyo sanduuqa in lagu tegi karo yaan la tusin oo la dhihin cod sanduuqa kuma tegi kartide qorayaad ku joogi kartaa ama ku bixi kartaa yaan dadka la tusin aan leenahay mana dadkeennuna waa ka koreen si gaara mar kale waxaan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa dadka reer banaadir wixii aad muddo dheer ku haminayseen albaabkeediyaa la furay waxaan si gaara mar kale ayagana u hambalyaynayaa xildhibaanada labada aqal iyo raggii gaar ahaan u istaagay dadka ka muuqday qadiyadda gobolka banaadir oo uu ka mid yahay xildhibaan cabdulqaadir qasable cali iyo maxaan ku idhahdaa xildhibaanada kale oo faraha badan oo dhammaantood har iyo habeen usoo taagnaay sidii qadiyadda gobolka banaadir waxaan sidoo kale ayagana aan u hambalyaynayaa odayaashii dhaqanka iyo dadkii usoo taagnaay laakiin hawshu waa meesheedii hadday dadaalkeedii iyo muhiimaddeedii meeshii ay ugu mudneed hadday taagan tahay waan u wada istaagaynaa waanan gaaraynaa maalin dadka gobolka banaadir ku nool ay dhisteen maamul ayagu ay leeyihiin oo ay uga qayb galaan nidaamka federaalka ah aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu